أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waa arbaco ay bisha ramadaan tahay 1442 hijrada 14 abriil 2021 miilaadiga. waxaan joogaa meeshay ku tiilay khaymada macbad. waa meesha qiyaas meesha ay suran tahay imaamadeyda iyo ushaydu. halkaasna waxaa uga jeedaa gurigii iyo ceelkii geedaha dhexdooda uga jeedaa masracatu samraa. dariiqaasna waa dariiqii hijrada oo maka iyo madiina isku xirayay. aad u jeedo baabuurta maraysa. ابن إسحاق wuxuu yiri rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr as-Siddiq iyo Amir bin Fuhayra iyo daliilkooda Abdullah bin Urayqit waxay soo mareen meesha la yiraahdo Qudayd. ayna halkaas ku soo mareen haweeney la yiraahdo Macbad Aatika bint Khalid al-Khuzaa'iya. waxayna ahayd haweeney da'weyn oo dhowrsan xoogna leh. macbad waxay fadhiday khaymadeeda horteeda. waxayna halkaas dadka socdaalka ku jira ku siin jirtay oo uga gadi jirtay waxay cabaan iyo waxay cunaan. ragana waxaa ka dhammaaday sahayday wateen sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa wayna gaajoodeen oo haraadeen. markaasay waxay macbad weydiisteen caano iyo hilib ay gataan. waxba wayse ka waayeen oo waxay tiri wallaahi haddaan wax hayn lahaa waxaaban idinka dhigi lahaa xaqa martidu leedahay in cunno iyo cabid la siiyo idinmana baahiyeen inaad gadataanba. markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay oo dhugtay ceesaan khaymada dhinaceeda joogtay oo caatanimo iyo itaal darro ay qabto. ariga kale uga reebay marka subaxii la foofiyey. markaasuu rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fahal biha min laban. tani caana ma leedahay? waxay tiri intaas way ka taag daran tahay, tan kalena lamaba boodin. wuxuu sallallahu alayhi wasallam yiri ata'dhiniini li an ahlubaha. ma ii ogolaanaysaa inaan listo? waxay tiri haa, aabbahay iyo hooyaday ayaan kugu furanayaaye haddaad caano ka aragtid liso. markaasuu sallallahu alayhi wasallam ayada weydiistay inay ceesaanta u keento. markay u keentayna labadeeda lugood oo dambe wuxuu geliyey labadiisa lugood iyo labadiisa bowdo dhexdooda. wuxuuna gacanta mariyey labadeeda naas wuxuuna yiri bismillaahi. markaasay labadeeda jeeni kala durkisay oo ay godlatay oo labadeeda naas caano ka soo buuxsameen. markaasuu sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiistay weel weyn oo uu ugu liso oo dadku ka dhergo. markaas loo keenay oo sallallahu alayhi wasallam caano badan ku lisay oo macbad siiyey oo ay ka dheragtay. kadibna Abu Bakr as-Siddiq siiyey oo ka dhergay iyo labada nin oo kale oo la socotay alayhi salaatu salaam ayaguna ay ka dhergeen. markaas kadib ayuu inta lisay sallallahu alayhi wasallam isagu cabay. isagaana ugu dambeeyey wuxuuna yiri saaqi alqawmi aakhiruhum sharban. ninka dadka waraabiya isagaa ugu dambeeya qof cabba. markaasuu sallallahu alayhi wasallam haddana lisay oo haddana ay mar labaad wada cabbeen. markaasuu sallallahu alayhi wasallam mar saddexaad ku lisay
أم معبد كيري أنتو أديبي ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك كسي كنسي أبو معبد مركو كوي ماذو أبو معبد مقعيس نوحو أها حبيش وكان ديغانك وكوي لي أي كنتي لي خيمة أم معبد buurahaas ka mid a hog ku yiilay ayuu habeenkaas nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku hoyday cimaamadaydii iyo usheedina halkaasay suran yihiin